بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سوم IT tutorials iyo cashiradii sequelka cashirkii 15aad cashiradii ugu dambeeyay waxaan ku soo sameynay recreation tables saddexda ah ee aan create gareynay dib u create gareynay waxaan ku soo darnay column kale oo ah ID kaas oo aan ka soo dhignay primary key oo auto increment isku sameynaayo number integer ah marka la siinayo MySQL kana ay maamusho saddexdan table ayaan haysanay oo hadii aad connection keena ka aragtid qaybta connections keena ee nagu xireysa database keena waxaan arkaynaa saddexdan table inaan haysano ama inaan haysano ka soo qaado kale database name investment taasoo saddexdii table ay ku jiraan table walba hadii aad fiirisid waxa ku jirta xog kana hada fiirino xogaa ku jirta kana hada fiirino xogaa ku jirta waxa soo dhan cashiradii ugu dambeeyay ayaan ku soo sameynay cashirkan marka waxaan rabaa inaan ku sameeyno maadaama aan ka soo hadlaynay kaliya DDL ama data definitions table structure kiisa kaliya aan ka soo hadlaynay cashiradii ugu dambeysay hadda waxaan rabnaa data table ku jirta in aan u gudubno sidee data table loo gelin karaa looga tirtiri karaa loo soo aqrin karaa update loogu sameyn karaa xogta table ku jirta tusaale ahaan oo kale waxaan sameynaynaa hadaan si kala u dhaho waxaan sameynaynaa CRUD operations ayaan sameynaynaa CRUD waxa laga soo gaabiyay sida waxa laga soo gaabiyay ama ay u taagan tahay hadaan forward ka dhignaba sida waxa laga soo gaabiyay creation arta waxa laga soo gaabiyay reading uda waxa laga soo gaabiyay updation ama updating didana waxa laga soo gaabiyay deleting afartan ayaa waxa la dhahaa CRUD operations la dhahaa operations kan waxay ku dhacaan xogta table-ka ku dhex jirta ay ku dhacaan table-ka structure-kiisa ma saameeyaan xogta table-ka dhexdiisa ku jirta marka table creation la sameeynaa creation dabcan waa insertion oo kale waa table-ki data gelinaysa reading waa selecting data ka soo akhrinaysa updating kana waa table update command la isticmaal doona oo arki doona deletion oo delete la isticmaal doono CRUD operations ka kuwaas ayaa la dhahaa marka tusaale ahaan oo kale hadda di aad fiirisid table keena businesses oo kale hadaan fiirino xog yaro waxa ku jirta ilaa iyo 4 xogaa ku jirta xog badan waa gelin karnaa tusaale ahaan xog markaan gelinayno insert isticmaalaynay tusaale ahaan oo kale hadaan kan box soo koobiyeyno waxaan isticmaalaynay insert command ayaa isticmaalaynay waa creation CRUD operation marka waa qaybta sida creation data xogaa create gareynaysa oo table ka gelinaysa insert intuu marka dhahdid waa commandiga aad u isticmaalaysid marka xog table ka aad gelinaysid kadibna waxa raacinaysa table kaas magaciisa kadib waxa haysataa option ah inaad raacisid columnski adiga table ka columnskiisa inaad qeexatid oo meeshan aad ku qeexatid hadii aadan qeexin oo intaan aad ku dhaaftidna wax problem ma lahan laakiin waa inaad ogtahay sida ay u kala horeeyaan tableska sababtoo ah values kan meeshan imaanaya waxay qaataan sida ay tableska columnskiisa u kala horeeyaan ayaa loo kala hormarnaa hadii kalena waa in adiga aad qeexatid tableska ama aad kala hormarin kartid ama aad kala doomarin kartid ka bacdina values kaas aad u dhigatid qaab muxuu ahaa qaabka tableska aad refine ugu sameeyso orderkooda aad u gelisid valueska qaabkan waa sameyn kartaa intaan hadii xog agelisid table-ka tusaale ahaan oo kale hadda ka soo qaadanaba hada dhaxno kan bedelno magacan ION aan soo qaadanaynaaba kan aan ka dhignaba ka soo qaado kala 30,000 xogtiisa kan aan investor ka dhigno hadii aan ku dhufto run on active connection table-ka xogtan ayaa la gelin doonaa hal mar ayay xogtan galaysaa table-ka dhowr mar hadii ku dhufatidna dhowr mar ay soo laala muxuu ahaa galaysaa waxa sameyn kartaa kaliya values kana inaad soo celcelin kartid marka aad rabtid tusaale ahaan oo kale dhowr values hal marna waa gelin kartaa oo waxa dhigi kartaa qaabkan comma ayaa ku kala saaraysaa tusaale ahaan oo kale dhowr values ayaa soo celcelin kartaa insertion marka sameynaysid kan ugu dambeeya ayaa semicolon siinaysaa kuwa kalena comma ayaa raacinaysaa intaan tusaale ahaan oo kale hadaa ka bedelno inta waxa leenahay ka soo qaado kale 15,000 aan ka dhigno magacan waxaan ka bedeleynaa tusaale ahaan oo kale magaca u bixinayna RD aan iska dhaxno kanna waxaan u bixinaynaa tusaale ahaan oo kale completely aan iska bedelno waxaan u bixinaynaa ka soo qaado kale
home accessories iska dhaxno waa magaca aragtida qaadan kartaa dabcan la soco kanna waxaan u bixin karnaa kasoo qaado kale wood and wire shop iska dhaxno okay kanna mmd ba iska soo qaado intaana waa kala bedeli karnaa oo kan waxaan ka dhigi karnaa not invested kanna waxaan ka dhigi karnaa not invested kanna waxaan ka dhigi karnaa not invested waa isku dhex qasi karnaa dabcan sababtoo ah column-kan qaybta current status-ka waxaa galaysa kaliya invested ama not invested ayaa galaysa xogtaana waa kala bedeli karnaa kan waxaan ka dhigi karnaa 98,000 ama 90,000 kan waxaan ka dhigi karnaa 80,000 kan waxaan ka dhigi karnaa 35,000 any data ayaa qaadan kartaa okay hal insert command anigoo isticmaalaya ayaa table-ka businesses intaan xog gelin karaa dabcan values kan values dabcan ma soo celcelinayno values kaliya waa hal dabcan sababtoo ah values ka hal mar aan qaadanaynaa waxaan soo celcelinaynaa kaliya xogta bracketka ku jirta xogtan ayaan soo celcelinaynaa saan markaa dhaxno sidaan marka aad samaysid waxaad table-ka gelin kartaa intaan oo data ah adigoo isticmaalaya hal insert command tusaale ahaan oo kale run active connection haddii ku dhufto waxaan arkaynaa xogtii table-ka inay gashay haddii aan table-ka tagno oo table-ka businesses aan furno information tiro badan aan arkaynaa inuu table-ka ku jiro wood and wire shop home accessories information-kii ka mid ah sidaan ayaan table-kii data ku gelinay marka kani waa insertion comment aan iska saarno sida aad uga tixraacatid current operationskii waxaan sameynay qaybta cbs ayaan sameynay creationka hadda waxaan rabnaa reading inaan sameyno inaan table-kii data ka soo akhrino sidee table-ka data u soo akhrin karnaa waxaan sameyn karnaa kan aan idin weyneeyo table-ka markaa data ka soo akhrinayno waxaan qaadanaynaa select keyword kadibna waxaad isticmaali kartaa inta column oo aad rabtid inaad soo akhrisid table-ka inta column uu ka kooban yahay xogtooda waxaa soo qaadan kartaa tusaale ahaan oo kale waxaa dhigi kartaa business name aa u baahanaha kaliya dhigi kartaa tusaale ahaan oo kale business name kaliya u baahanaha ayaa dhigi kartaa yearly revenue-ga u baahanaha kaliya dhigi kartaa current status ama waxaa sameyn kartaa inaad raacisid asterisk inaad raacisid ama xidig saa u taqaanidba kadibna aad raacisid from table-ka aad rabtid xogtiisa inaad soo qaadatid semicolon query-gan waxa uu u taagan yahay select waxaad ka soo akhrisaa xog everything oo ku jira table-ka businesses everything maxay tahay every column xogtiisa soo akhri sidaan marka aad dhahdid query-gan waxay sameynaysaa marka aad connection-ka joognay businesseska table-ka button-kan marka aad ku dhufanayno xogtii aad arkaysay xog la mid ah ayay sameynaysaa tusaale ahaan haddaan run active connection ku dhufto fiiri waxaan arkaynaa xogtii dhan ayaan arkaynaa tableskii 9 column muxuu ahaa 9 row ka kooban xogtii tableska magacooda yearly revenue-gooda current status-kooda ayaa meeshan ka arkaynaa waxaan sameyn kartaa inaad raacisid condition ama conditionka inta aadan raacin waxaad dhihi kartaaba kasoo qaadoo kale waxaan rabaa kaliya business name-ka inaan arko table-ka businesseska dhammaan business nameska inaan arko run active connection markaa ku dhufatid waxaa lagu soo saaray table-ka businesses column-kiisa business names kaliya haddii aad rabtid waxaad dhihi kartaa waxaan u baahanahay yearly revenue kaliya ayaan u baahanahay haddaa ku dhufatid run active connection yearly revenue bis ayaa arkaysaa haddii aad rabtid current status ka dhigi kartaa waxaa sameyn kartaa current status intaa soo qaadatid from businesses inaad dhahdid current status ka arki kartaa haddana not invested not invested zawjid xogtii table-ka ayaa sidaas loo soo qaatay haddii aan rabno maxaa sameyn karnaa condition ayaa sameyn karnaa waxaan dhigi karnaa tusaale ahaan oo kale table columnska dhan noo soo qaado table-ka businesses ka soo qaado laakiin waxaan raacinaynaa where waa keyword SQL keyword taasoo na tusinaysa condition inaan rabno inaan keenno conditionkaas muxuu yahay tusaale ahaan oo kale column-kan shuruud ayaan ku xiri karaa waxaan dhigi karaa kasoo qaadoo kale id column kaasoo la mid yahay 2
id column kaasoo la mid yahay 4 id columniska ayaa ugu wici kartaa tusaale ahaan oo kale id column-ka 4 ayaa tusaale ahaan rowga id-giisa uu 4 yahay ayaa la soo qaadanaa everything laga soo qaadanaa it means business name yearly revenue-ga current status-ka dhammaan columniska table-kaas ayaa la soo qaadan doonaa laakiin kee waaye rowga afraad waaye haddii aan run active connection ku dhufto fiiri waxaa soo baxaysaa rowgii id-giisa uu ahaa 4 table-kaas business name column-kiisa business name magaciis xyz commerce yearly revenue-gu maxaa ku jirta 3000 current status-ka waa invested qaabkaas ayaa la soo qaadan karaa haddii aan mid kale fiirisid tusaale ahaan oo kale aan dhahno 6 id-giisa uu yahay aan run active connection ku dhufto xogtii waxaan arkaynaa column-ka ama rowga 6 lixaad xogtiisa ayaan arkaynaa haddii arabti waxaa dhihi kartaa condition inaad dhahdid waxaa ii soo qaadataa dhammaan columniska soo qaado xogtooda table-kaas ku jirta condition aad samayn kartaa tusaale ahaan oo kale waxaan dhihi karnaa current status-ka ee la mid noqoto tusaale ahaan oo kale invested waxaan u baahannahay kaliya businesseska invested-ka ah it means way isku jiraan hadda kan waxaan arkaynaa rowga lixaad waaye meesha waxaan ka arkaynaa not invested muxuu ahaa current statuskiisa yahay hadda meeshan condition-kan daatada ay soo qaban doonto isaga waa laga bixin doonaa kuwa invested ah bisa lasoo qaadan doonaa maxaan ka wadaa kuwa current statuskooda columniskaas current statuska uu yahay invested bis not invested lama soo qaadan doono invested uu yahay lasoo qaadan doonaa haddii aan dhahno run active connection fiiri muxuu ahaa almost waxaa lasoo qaatay 5 column ama row ayaa xogtooda lasoo qaatay 5taasi invested waaye current statuskooda micnaheeda waa kan invested arkeena bilcagsi haddaan soo qaadano oo dhahno not investor haddii aan dhahno maxaa soo baxaya fiiri run active connection haddaan ku dhufano muxuu ahaa iyadan waxaan arkaynaa almost 5 kale ayaan arkaynaa kaasoo ah xogtooda not invested it means conditionska ayaa sidaas ku samayn kartaa conditionska current status kaliya maahan yearly revenue-ga xataa isku barbardhigi kartaa waxaa dhigi kartaa xogta waxaa u baahanahay inaad soo qaadatid tableskaas ku jirta kaasoo column-ka yearly revenue-gooda uu ka weyn yahay tusaale ahaan oo kale 30,000 sidaan haddaan dhahno waxaa lasoo qaadan doonaa 3 column ama 3 row ayaa lasoo qaadan doonaa xogtooda kuwaasoo 30,000 ka weyn 35,000 saa u jeedid 70,000 90,000 30,000 ka yar haddii aad dhahdid it means waxaa lasoo qaadan doonaa 30,000 xogtaan current statuska ka yar tableskaas daatadooda ayaa lasoo qaadan doonaa oo waxaan arkaynaa kuwan 30,000 waa dabcan kuwan 15,000 way ka yar tahay la eg haddaan dhahnana ka waran hal table ayaa jira saan jeclahay haddii sadaan qaldanin waana hal table hal column waa row hal row aan ka wadaas dabcan waxaan arkaynaa 30,000 investor ayaan arkaynaa xogtiisa inuu yahay current statuskiisa business name-kiina uu yahay ion ama ion commerce sidaas waxaa ku dari kartaa conditions ayaa ku dari kartaa table-ka adigoo isticmaalaya ama aan dhahay query-ga adigoo isticmaalaya where condition-kaas operationska aad ku samayn kartid maxay tahay waxaa samayn kartaa equal oo kala samayn kartaa waxaa kaloo samayn kartaa not equal oo u taagan operation kale waxaa kaloo samayn kartaa greater than calaamadaas u taagan waxaa samayn kartaa less than greater than waxaa waaye less than ka yar greater than ka weyn waxaa samayn kartaa operationska inaad naftirkooda ayagana raacisid tusaale ahaan oo kale waxaan rabaa kasoo qaad businesseska kuwaasoo yearly revenue-gooda uu ka weyn yahay 30,000 condition-kan waxaa isku xiraa marka and ayaa leeyahay shuruud kale ama ku xiraa shuruuddaas waxay tahay current statuskoodana uu la mid yahay ama uu yahay invested waxaan rabaa fiiri businesseska kaasoo yearly revenue-gooda uu ka weyn yahay 30,000 and shardi kale ayaa meeshan yaala current statuskoodana uu yahay ama uu la mid yahay invested labadan shardi haddii la waayo xogtani wax ma soo qaban doonto haddii labadan shardi la helo mid kamid ah in la helo ma ahan labadooda waa inay true noqdaan haddaan ran gareena fiiri marka maxaa soo baxayo waxaan arkaynaa hal
row xogtiisa ayaan arkaynaa kaasoo ah wood and wire wuxuu wataa 70,000 oo ka weyn 30,000 ka weyn year revenue-ga current status-kiisuna uu yahay invested. haddaan dhahno fiiri less than haddaan isticmaalno businesseska kaasoo year revenue-gooda uu ka yar yahay 30,000 current status-kooduna uu yahay invested. haddaan sidaan u rangareyno fiiri waxaa soo baxaysa laba row labadaas row maxay tahay 3,000 iyo 3,000 ayay kala wataan year revenue-gooda current status-kooduna waa invested. not invested haddaan ku bedeshid fiiri not invested haddaan ku bedelno run active connection marka aan ku dhufto 3 row ayaan xogtooda arkaynaa kuwaasoo ah year revenue-gooda uu ka yar yahay 30,000 current status-kooduna uu yahay not invested. sidaas marka waxaa samayn kartaa conditionska inaad combination ku samaysid hal conditionkii labaad laba condition inaad and ku dartid ama waxaa samayn kartaa inaan or ku xirnoba. okay haddaad or isticmaashidna it means labadan condition year revenue-ga iyo current status-ka midkood waa inuu noqdaa true ama 30,000 waa inay ka yaraataa year revenue-ga ama current status-ka uu noqdaa not invested. haddii aad conditionkaas fiirisid waxaa arkaynaa xog badan in la soo qaatay xogtaas it means micnaheedu waxa uu yahay labadani column fiiri year revenue-ga haddii 90,000 fiiri kama yaro 30,000 laakiin current status-kiisa ayaa waxa uu yahay not invested kan ayaa true noqday. labadan condition midkood waa inuu true noqdaa qaabkaasna ora u isticmaali kartaa. waxa kaloo samayn kartaa inaan dhaxno ka soo qaad year revenue-ga aan isticmaalno between waa keyword kale kaasoo aan ku samayn karno range tusaale ahaan oo kale waxaan dhihi karnaa year revenue-ga uu u dhaxeeyo 10,000 and ayaa ku xiraysaa ilaa 40,000 ka soo qaad oo kale. businesseska xogtooda noo soo qabo kaasoo year revenue-gooda uu u dhaxeeyo range-ga 10,000 ilaa 40,000. haddii aan rangareyna fiiri maxaa soo baxaya waxaan arkaynaa xogtani 3 row ayaa arkaynaa xogtiisa. haddii aad fiirisid kan waxa uu wataa 30,000 kanna 15,000 kanna 35,000 it means 10,000 wixii ka weyn ama u dhaxeeyo between range-gan 10,000 ilaa 40,000 year revenue-gooda intuu u dhaxeeyo businesseskan ayaa wata ayuu ku leeyahay xogtiisa. sidaan waxaa ku samayn kartaa inaad daatadii ku aragtid adigoo isticmaalaya select kabacdina aad qaadanaysid inaad dhahdid dhammaan column-yada isoo qabo xogtooda ama inaad dhahdid column-iska aad rabtid inaad meeshan ka sheegtid common aad u dhaxaysiisid from keyword inaad raacisid businesseska ama table-ka aad rabtid xogtiisa inaad soo qabsatid oo aragtid fetching kusoo samaysid inaad raacisid conditionskaasna aad gadaal ka raacin kartid si aad filtering ugu samaysid daatada aad rabtid inaad aragtid ama select lagu sameeyo. cashirkan marka waxaan kusoo qaadanaynay CRUD operationska waxaan kusoo qaadanay laakiin creating ama insertion data inaan sameyno insertion iyo reading data. cashirka xiga waxaan ku samayn doonaa dualidmo sidee datada update loogu sameeyaa sidee sidoo kale deletion ama tirtirid marka aan rabno xog inaan table ka tirtirno sidee u xogtaas u tirtiri karnaa. cashirka xiga ayaan kusoo qaadanaynaa kanna meeshaas ayaan ku sameynaa wabillahi tawfiiq.